intaad samaysay ama gaartay nolosha hadda iyo dadaal kastood ku bixisayba waxba ma aha marka loo barbardhigo waxa aad noqon kartid. ogow qofku mar walbaba meesha uu joogo meel ka sarreysa wuu gaari karaa, maxaa yeelay meesha uu hadda joogaba shalay ma joogin. waxaad mar walba noqotaa qof hadafkiisu ka sarreeyo kii shalay. waxaad noqotaa qof tiigsanaya darajadii shalay midaan ahayn mid cusub. waxaad ku dadaashaa maalin kasta waagu markuu kuu baryo maadaamay maalin cusub tahay in hadafyadaadu ay yihiin kuwo cusub. adiga iyo midka horumarka gaaray ee nolosha meelo fara badan kaaga horumaray waxaad ka siman tihiin waa 24 saac. meeshaad adigu hurudid sidii qof maalqabeen ah oo nolosha yoolashii uu lahaa oo dhan xaqiijiyey ama hadafyadiisiiba gaaray, isagu wuxuu joodariga ka kacayaa goor aad u horreysa. maxaa yeelay ma doonayo inuu dadka la sinaado, wuxuu rabaa mar walba inuu noqdo qof isagu maylka dheeraadka dadka ka horreeya. wuxuu joodariga ka kacayaa sidii isagood moodid inuusanba hadafyadiisii gaarin. wuxuu joodariga ka kacayaa isagood moodid inuu faqiir yahay aan waxba haysanin. waana tallaabada sirtee kaa qarsoon eedan ogayn ee dadka nolosha kaa horumaray ay noloshooda ku tarbiyadeeyeen. waana dhibicda qofnimee tayada sare leh ee ay ku dheer yihiin. mase og tahay raaxadu inay diiwaan geliso maxaabiis ka badan kuwa xabsiyada adduunkoo la isku daray laga diiwaangeliyo in ka badan maalin walba. ogow waxay dad fara badani hadafyadooda uga gaabiyeen oo la gaari waayaan. waa raaxadoon. wuxuu rabaa inuu raaxo ku jiro, mar raba inuu in yar oo kulaylaba dareemo. haddii uu damco inuu iskuul aado wuxuu ka baqayaa ama iskuulka ku dhacdaa. hadduu damco inuu shaqo bilaabo wuxuu ka baqayaa ama laguu soo diidaa. hadduu damco inuu fakar cusub oo isaga ilaahay ku dhaliyey ama karti ilaahay uu siiyey hadduu damco dadka inuu la wadaago wuxuu ka baqayaa talow siday kuu malayn doonaan. hadduu damco qofku inuu guursado wuxuu isleeyahay talow amaad fashilantaa. hadduu damco qofku inuu 2 shaqo ka shaqeeyo wuxuu isleeyahay talow amaad dhiigu kaa dhacaa oo aad caafimaadkaaga dhaawacdaa. hadduu damco inuu jiim aado naftu waxay ka gelinaysaa caajis. ogow mar walba naftu meesha ay ku raaxaysato oo ay farxadda ku dareento waa in aad ku qasabtid waxa danteedu ay ku jirto. naftu shaqo kuma raaxaysato, waxay ku raaxaysataa miraha ay shaqadu dhasho. sideeda maskaxdu kuma ogolo inaad dhibtootid, waana fulay loogu talagalay in ay kaa leexiso wax kastoo aysan aqoon u lahayn. laakiin qofka laga doonayo in uu isbaro oo ku tarbiyadeeyo oo uu caado uga dhigo isbeddelka ilaa ay la qabsato la daristo oo isbeddel kastood u keentidba ay ka aqbasho waa adiga. waana sirta maalqabeennada iyo dadka horumaray ee himmadoodu ay sarraysaa ay leeyihiin. dadka hadalkooduna saamayn kuma laha noloshooda. waxaad ogaataa dadku mar walba way hadlayaan, maxaa yeelay hadday naftooda ka hadli lahaayeen cidina ma dhegaysateen. waana sababta keentay inay adiga kaa hadlaan, maxaa yeelay qiimahaaga iyo tayadaada sare iyo shakhsiyaddaada wanaagsan iyo horumarkaaga aan la dafiri karin ee muuqda ayaa keenaya inay mar walba adiga kaa hadlaan, hadday ku necab yihiin iyo hadday ku jecel yihiinba.